سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داوديال ميل ولباد جوجتان با قضبضا ورarkeena ku maqli doontaan waxa kamida xaaladda siyaasadeed dalka Itoobiya ayaa marka ka dambaysa si cakirmaysa iyadoo xoogga mucaaradka ama shakhsiyaadka ugu tunka weyn mucaaradka dalka Itoobiya ay ku baaqeen dalweynaha Itoobiya inay sida ugu dhaqsaha badan dagaalada qaraar ee ka soconaya gudaha dalka Itoobiya loo joojiyo miiska wada hadalkana la iskugu yimaado hoggaanka Oromada ama ugu tunka weyn mucaaradka dalka Itoobiya waa Jawhar Muhammad ayaa ugu baaqay xoogagga ku dagaalamaya dalka Itoobiya inay miiska wada hadalka iskugu yimaadaan dalweynaha Itoobiyana uu qarka u saaran yahay gabi ahaanba meel aan laga soo qaban karin inuu ku dhaco isagoo ugu baaqay xoogagga isku haya dalka sida TPLF axmaarada dawladda federaalka mucaaradka dhan ee Itoobiya guud ahaanba inay miiska wada hadalka iskugu yimaadaan lagana hormariyo nabadda dalka Itoobiya iyo si ay Itoobiyanimadu u sii jirta ama dalweynaha Itoobiya loo badbaadiyo taliyaha militariga dalka Itoobiya Burhanu Jula ayaa booqashaan horay loo shaacin ku tagay goobaha la isku haystay dagaalada qaraadha ay ku dhaxmarayeen maleeshiyaadka Benishangulka iyo kuwa Suudaan ayadoo dhulka la isku haystay Alfashaqa gobolka loo yaqaan uu taliyuhu si dhuumaaleysi ku tagay ayadoo arrintaasi si weyn ay uga xanaajisay dalweynaha Suudaan sidoo kale militariga dalka Itoobiya ayaa howlgalla aad u ballaaran aad u baaxad weyn wali waxay ka wadaan gobolka axmaarada iyagoo beegsanaya jamhadda Faana iyo dhalinyarada axmaarada hubku gacanta u galay ee fikrad ahaan aaminsan axmaarazimka ayadoo halkaasi howlgalla aad u waaweyn ay ka socdaan militariga dalka Itoobiya ayaa sheegay inuu kumanaan ka mid ah taageerayaasha Faana oo xabsiyada u dhaadhicay walina ugaarsigu halkaasi ka socdo iyadoo sidoo kale la sheegayo wariyaal ka shaqeynaya TV-ga deegaanka axmaarada inay xabsiyada loo dhaadhicay laguna eedeeyay inay gabi ahaanba propagandada Faana oo kaliya ay halkaasi u joogaan deegaanka Soomaalida wali waxa weerar qaraar ku haya maleeshiyaadka canfarta ayaa dad Soomaaliyeed oo aad u tiro badan galbeedka gobolka City ku waxyeelay iyadoo deegaanka Candhuufo deegaanada ku hareeraysan ay wali ka soconayaan isku dhacyada u dhaxeeya Soomaalida iyo canfarta qodobada kale ee wararkeena ku maqli doontaan waxa kamida sixir bararka dhaqaale la'aanta gaajada macaluusha ee dalweynaha Itoobiya guud ahaanba ku habsatay ayaa marka ka dambaysa ka sii daraysa iyadoo maamulka dawlad deegaanka Soomaalida ay hawshu aad ugu cakiran tahay shirarka gooskooska ay xukuumaddu la yeelanayso ganacsatada culimada aqoon-yahanka ayaa marka ka dambaysa ka furmaya ama ka soconaya magaalada Jigjiga ayadoo xal waara loo leeyahay xaaladda sixir barar lacagta Itoobiya oo gabi ahaanba qiimaheedu dhulka ku dhacay caalamkuna uu aad ula yaabay abaarta iyo macaluusha dalweynaha Itoobiya ku dhufatay xaaladuna ay marka ka dambaysa ka sii darayso magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxa ka soconaya dawlad dhisida sida dardarta la ku socota wada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si talantaalis u magacaabaya saraakiisha ku biiraysa dawladnimadiisa 5 sano ee soo socota dalkaas iyo hogaaminaysa isagoo marka ka dambeeya u magacaabayo saraakiil si weyn uga dhex muuqatay bulshada Soomaaliyeed qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegaynaa haddaynu guda galnaa wararka gobolka axmaarada waxaa ka soconaya howlgalla militari oo aad u ballaaran oo u dhaxeeya ciidanka Faana iyo militariga dalka Itoobiya ee laga soo daabulayo gobolada dalka Itoobiya guud ahaanba dalweynaha Itoobiya waxaa ka soconaya dagaalo qaraar oo goobo badan oo gobolada dalka Itoobiya ka soconaya haba ugu daraato gobolka axmaarada oo hadda howlgallada ugu dambeeya ay ka soconayaan ay dawladdu taageedka saarayso militariga dalka Itoobiya ayaa xabsiyada dhigay dhalinyaro aad u tiro badan oo qoomiyadda axmaarada oo lagu eedeeyay gabi ahaanba inay xidhiidh la leeyihiin jamhadda Faana oo ka faa'iidaysatay dagaaladii ka dhacay waqooyiga dalka Itoobiya hubbadanna uu gacanteeda galay qoomiyadda axmaaradana ka dhaadhicisay fikradda ahaa inay axmaarazim wax la jirto ama dalweynaha Itoobiya ay axmaaradu boqortooyo tahay axmaara cid aan kale aan ahayn oo dalweynaha Itoobiya maamuli kartan aan jirin
hase yeeshee dowladda oo ugu baaqday sharciga dalka Itoobiya inuun ogolayn in ay ka dhaqaaqaan maleeshiyaad aan ka diiwaangalsanayn dalka ana ka mid ahayn ciidamada Itoobiya noocyadooda kala duwan ciidanka federaalka ciidanka dowlad deegaanada dalka oo kaliya ah laga aqoonsan yahay gudaha dalka Itoobiya ayaa gabi ahaanba waxay dhawaan ku gacan saydhay qoraalkii ka soo baxay dowladda ayna gabi ahaanba faara ay hubka sida ugu dhaqsaha badan oo dhigto shacabkeedana geeska ay ka raacdo ayadoo hawshaasi ay faaro cuntay weeday ay gabi ahaanba faara ka doorbiday inay dagaal qaraar dowladda la gasho duurkana ay u huleesho ayadoo xaaladdu aad u cakarantahay gobolka Axmaaradana qarka u saaran yahay inay gabi ahaanba militarigu la wareegaan dowladnimada gobolka Axmaaradana ay kala diraan hoggaanka mucaaradka ugu weyn dalka Itoobiya ee Oromka loo yaqaan Jawhar Mohammed ayaa ugu baaqay dalweynaha Itoobiya in la badbaadiyo isagoo sheegay dalweynaha Itoobiya inuu qarka u saaran yahay god weyn oo dib looga soo noqon doonin inuu ku dhaco ninka sargaalkan mucaaradka ugu sarreeya ayaa ugu baaqay dowladda Itoobiya inay xalkan ama dagaalkan ay xal kale u hesho isagoo sheegay in la isku yimaado mucaarad iyo muxaafidba dowladana ugu baaqay inay u yeedho Gabrasiyo Gebre Mikael waa hoggaanka TPLF ee dowladda Itoobiya ugu yaraan 2 sano ku dhow dagaalka xooggan kula jira ee dagaalkiisana xal loo waayay iyadoo haddana dalku uu dagaal qaraar ka curteen sida Oromada iyo Axmaarada iyo gobolada Benishangul Gumuz goboladaas oo dhan ayaa dagaal qaraar ka soconaya welina wax xal ah loo meel xalku si adkaanaya taliyaha militariga dalka Itoobiya ayaa soo qaatay diyaaradaha rakaabka shacabka si uu Malaysia ku tagay dhulka la isku haysta gobolka Alfashaqa ee Suudaan iyo Itoobiya u dhaxeeya iyadoo halkaas ay dhawaan dagaal qaraar ku dhaxmareen maleeshiyaadka gobolka Benishangul dalka Suudaan taliyaha ayaa la sheegay halkaas inuu kula kulmay ciidamo taabacsan dalweynaha Itoobiya isagoo ku dhiirigeliyay inay dhulkooda difaacdaan dowladda Suudaan baaqad ugu diray hase yeeshee Suudaan ayaa arrintaasi si weyn ugu gacan saydhay deegaanka Soomaalida weerar qaraar ay ku hayaan xoogga canfarta ayagoo dad rayid oo aad u tiro badan waxyeello u geystay gobolka City ama galbeedka City welina halkaasi waxaa ka soconaya isku dhacyo waaweyn dowladda deegaanka Soomaalida ayaa xal u la sixir bararka lacagta qiimaheedu dhahay xaaladda cakiran deegaanka ka taagan gaajada iyo macaluusha madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida ayaa dhawaan sheegay inuu waxba hawshaasi ka qaban karin isagoo mucaarad iyo waaweyn iyo dhaliilo waaweyn kala kulmay xoogagga mucaaradka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dowladdiisa halka ka wada ayadoo magaalada Muqdisho ay la guuxayso ama ay la circirayso siyaasiyiinta uu qaanqal taagaya wasiirka koobaad ee dalka ra'iisul wasaaraha la filayo dhawaan ku dhawaaqa madaxweynuhu si dowladnimada Soomaaliya udubada loogu aaso ama dowlad caalamka la heshiisa sida uu madaxweynuhu sheegay Soomaaliya heshiisa caalamkana la heshiisa uu sheegay dowladdiisa uga magac daray taniyo kulanti dambe wacan salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh